markan Jubbaland ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay heegan gelisay dhammaan ciidamadeeda si looga hortago weeraro ay sheegeen in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku hayso gobolka Gedo. Cabdi Majid Abbas Aadan ayaa Kismaayo ka soo diray. golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland ayaa kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Kismaayo ku go'aamiyay inay iska caabin looga jawaabo dagaal dawladda dhexe ee Soomaaliya ay sheegeen inay ku soo qaaday. kulanka waxaa shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka Jubbaland Suldaan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere, wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubbaland Injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo shirka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in heegan buuxda la geliyay ciidanka maamulka ee Jubbaland. waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay weerar cad ku soo qaaday gobolka Gedo isla markaana ay xoog kula wareegtay. ugu dambeyntii waxa uu xusay in ciidamada Jubbaland meel walba ay joogaan ay jawaab bixin doonaan isla markaana wixii mas'uuliyad ah ay qaadan doonto dawladda dhexe ee Soomaaliya oo ciidamo ku soo daabushay Jubbaland. waxa laga hadlay qodobo amniga iyo siyaasadda xaaladda gobolka Gedo, hanaanka maamul ee waxbarashada ee dawladda federaalku ay u maamusho. qodobadii ugu horeeyay kadib iyo doodihii waxay golaha wasiiradu isla gaareen qodobadan hoos ku qoran kadib markaan marar badan ka soo gudbinay cabashooyin ku aadan faragelinta qaawan ee ay ku hayso dawladda federaalku dawlad goboleedka Jubbaland, taasi oo ku gudbinay war-saxaafadeedii isdaba joog ahaa maxaa la yiraahdaa qoraallo iyo isugu jiray maxaa la yiraahdaa kuwa muuqdaba. sidaa darteed dawlad goboleedka Jubbaland waxay si xoog leh u cambaaraynaysaa weerarka qaawan ee dawladda federaalku ay ku soo qaaday dawlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo. weerarada qaawan ee sharci darrada waxay sababeen khalkhal amni, colaad beeleedyo ka dhex abuurmay beelihii walaalnimada ku wada noolaa, taasi oo ay sababayso dib u soo celinta dagaaladii sokeeye ee laga soo gudbay. qodobka xiga waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ogeysiinaynaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay gacmaha ka laabatay la dagaalankii argagixisada, ayna caadaysatay burburinta iyo la dagaalanka dawlad goboleedyada Soomaaliyeed ee kula jiray dagaalka ba'an argagixisada. qodobka xiga golaha wuxuu go'aamiyay in si buuxda heegan ay u galaan ciidamada guud ee dawlad goboleedka Jubbaland meel kastoo ay joogaan si looga hortago duulamada qaawan ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ku soo qaaday dawlad goboleedka Jubbaland. Cabdi Majid Abbas Aadan, Fantastic, KNN, Kismaayo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa amray in askarigii isaga oo aan shaqo ku jirin qorisita la arko la dilo xilli uu ka hadlayay hanaanka lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho. warkan waxaa inoo faahfaahinaya Farxaan Maxamed Xuseen. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in qofkii wata qori aan ammaanka caasimadda lagu sugaynin ay ciidamada ammaanka dilayaan. sidoo kale gudoomiyaha waxa uu sheegay in degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood ay ku soo bateen ciidamada isku rasaasaynaya, taasina ay dhibaato ka soo gaartay dadka shacabka ah. wuxuuna baaq u diray ciidamada dawladda oo uu sheegay inay xarumahooda ciidan ku ekaadaan. ogtihiin magaalooyinka ama degmooyinka baadiyaha u furan ee magaaladan Muqdisho maalin walba waxa ka dhaca xabado waa la isku dilaa, maleeshiya beelada isugu imaan maalin walba la isku xabaday. in maalin walba la isxabadeeyo ee dadkeenu baaba'o ee dhaawacyo iyo dhimasho isbitaalada ay loo dhooban yihiin waxaan aqbali karnaa ma yeeleen. bulshada marka maamulada jira iyo garsoorada jira ha uga kaaftoomen inay qori soo qaataan. sideedaba qori aan ammaanka ka shaqaynayn ee magaalada gudaheeda lala gaaf wareegayo annaga in la dilaa nooga go'aansan. warkii noocaad yaa la rabaa maxaa yeelay qofku waa hubaysan yahay, qorigiisa uu rabaa inuu ku goosto sharcigiisa qorigaa u ah, rabitaankiisa qorigaa u ah. marka gacmaha ma isdul saarana ma fiirsanaynaa, markaasaa gabdhaha horteena lagu dilayaa, dadka horteena ma lagu dhacaya. ma aqbali karna marka taas. marka mas-uuliyiinta amniga iyo maamulka gobolka Banaadir waxay si buuxda isaga kaashanayaan in laga hortago arrimahaas. magaalooyinka ama degmooyinka baadiyaha u furan ee maleeshiya beeleedyada ama ciidamada dawladda dadka ka tirsan
ee aan xeryahooda iyo goobeeda ku ekayn ay gaaf wareegayaan arrintaas waa uga digaynaa maanta maadaama saxaafadda ay joogto bulsho badan oo Soomaaliyeed ay joogto. hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa waxa uu imaanayaa xilli bilooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ku soo badanayeen dagaalada u dhaxeeya ciidamada dawladda kuwaasi oo ka dhacay degmooyinka gobolka Banaadir isla markaana dhibaatooyin ay ka soo gaarayeen dadka shacabka ah. maamulka Puntland ayaa maanta waxa ay gabi ahaanba albaabada u laabeen xafiiskii guddiga doorashooyinka qaranka ay ku lahaayeen magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi Puntland. qoraalka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan ayaa lagu wargeliyay maamulka gobolka Nugaal in wasaaraddu ay xirtay xafiiskii guddiga doorashooyinka madax bannaan ee qaranka uu ku lahaa magaalada Garowe laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 6 bisha February 2020. qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu wargeliyay dhammaan gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka maamulkaasi Puntland in ilaa amar dambe guddiga doorashooyinka heer federaal aysan wax shaqo ah ka qaban karin gobolada iyo degmooyinka maamulkaasi Puntland. saraakiisha ammaanka ee maamulka Jubbaland ayaa waxa ay soo bandhigeen nin ugaas ah oo la sheegay inuu ka tirsanaa al-shabaab. Faysal Cabdulqaadir Yuusuf ayna soo kaba warkan. maamulka degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta soo bandhigay nin ay ku sheegeen inuu yahay ugaas kana mid ahaa dagaalamayaasha al-shabaab muddo dheer. ninkan ayaa lagu magacaabaa ugaas Maxamed Macalin Maxamuud waxaana maanta isku soo dhiibay ciidamada ammaanka ee degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. ugaaskan ayaa la sheegay inuu mid ka mid ah beelaha dega Jubbaland oo ugaas u ahaa balse uu xilli hore ku biiray ururka al-shabaab oo deegaano badan oo ka mid ah jubbooyinka fariisimo ku leh. ugaaskan oo ka soo goostay al-shabaab maanta oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inuu dhibaato uu kala kulmay madaxda al-shabaab. go'aankayga wuxuu ahaa inaan soo baxo Afmadowna imaado waan tashaday qalbigayga ka tashaday inaan baabuur ingeerto qaam ka dago inaan soo lugayo oon Afmadow imaado waxa ii fududaatay inaan soo lugayo Afmadow imaado sababta Afmadow dadkeeda dabeecadda aan aqaan anigu waxaan ahay reewaame waamaan ku dhashay 64 sano jiraan ku soo gaaray Afmadowna waa meesha laga xukumo waay horna loo xukumi jiro loo waa ma hadaad maqasho Afmadow waxaan ogahay dadka jooga inaan isfahmayno inay soo dhaweynayeen yaan go'aansadon qaate waan soo baxay laba habeen dhaxda soo galay agiiha ay baxay waan rafaaday haddaan soo baxe oo aan soo cararana si dadnimo leh dhaqan Soomaaliyeed ku arki jirnay ee qaabilan. Siyaad Macalin Bashiir oo ah taliyaha ammaanka ee degmada Afmadow ayaa sheegay in ugaaskan muddo ka tirsanaa al-shabaab haatana isku soo dhiibay ciidanka Jubbaland iyagana ay soo dhaweeyeen oo ka yimid nimankii nabadiidka dhexdooda marka muddo sidoo noo sheegay 2 sano dheeraad uu la shaqeynayay shaqada ayada wuxuu noo sheegay inuu ku faraxsanayn xaajigu oo ay ku ahayd dhib iyo maarka gumaysi iyo dhibaato faradeyn ku qabay mar in la xidhay isagoo beesha suldaanka ka ahaa intuu tagay ay wada tashanayaan geel qaranayaan tiilibkii laga daadiyeen la xidhay buu noo sheegay mar kale wuxuu noo sheegay in la yiri wariyaa wad dheer tahay iskaabi oo dadka la sinnow anaguna wax maarka dheer ma ku aragnay dadkiisa lamid ah buu ahaa runtii uu nala soo xidhay waan soo dhaweynaa anagu si fiican nin Soomaali oo awalba dadka xagga jiro anagu waxaan ka hamsanahay inay ku jiraan xabsi weyn qof aliyaal qofkii nagala soo xidhiidha ee yiraahdo waan idin imanayaan waan soo dhaweynaynaa waxaan ku xidhaynaana ma jiro oo maaragtay yani wax shuruudo ku xidhaynaa ma jiro qof kasta oo ka imaanaya meesha oo aan demi ka gelin ummadda waan soo dhaweynaa runtii waan u yeernaa. codkaasina waxa uu dambeeyay saaxiibayaal warkii wariyaheena Faysal Cabdulqaadir Yuusuf markana haddii aan eegno gobolka Mudug sida uu ka soo waramayo wariyaheena Liban Cajiib Xaaji dablay hubaysan ayaa rag ganacsato ah waxa ay ku dileen duleedka magaalada Gaalkacyo. inta la xaqiijiyay 4 qof oo kamid ah ganacsatada qaadka iibiya ayaa ku geeriyootay kadib markii maanta maleeshiyad hubeysan ay jid ku galeen gaari ay saarnaayeen oo mariyay meel ku dhow deegaanka Taarrow oo dhinaca galbeed ee magaalada Gaalkacyo. gaariga la rasaasiyay ayaa saaki aroortii hore ka baxay magaalada Gaalkacyo isagoo ku sii jeeday deegaano ka tirsan gobolka Mudug si uu u gaarsiiyo qaad uu ka qaaday magaalada Gaalkacyo oo horey halkaasi ganacsi ahaan loo geen jiray. dablida weerarka geysatay ayaa la sheegay in isla markiiba goobta ay ka baxsadeen kuwaas oo ilaa haddaan la aqoon halkay u
baxsadeen. qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay raadiyaha kulmiye ayaa sheegay inuu weerarkaasi uu salku ku hayo falal ku salaysan aanooyin qabiil oo horey halkaasi uga dhacay. odayaasha dhaqanka ee magaalada Gaalkacyo ayaa wada dadaal xoogan oo ay ku doonayaan inay ku xaliyaan xiisada ka dhalatay dilkaasi, waxayna wadaan baaritaano ku aadan sidii loo ogaan lahaa ciddii ka dambeysay dilkaasi, waxayna ka codsadeen ciidamada xasilinta gobolka Mudug inay ka qayb qaataan sidii loo soo qaban lahaa kooxihii ka dambeeyay weerarkaasi. deegaanada ka tirsan deegaanada gobolka Mudug ayaa inta badan waxaa ku soo laabtay dilal ku salaysan aanooyin qabiil, kuwaas oo u dhaxeeya dadka shacabka, mana jiraan ilaa iyo hadda cid si rasmi ah wax uga qabatay marka laga reebo in laga xun yahay dilalkaasi. Libin Cajiib Xaaji, Radio Kulmiye, Gaalkacyo. halka aad warka habeen ka dhageysanaysaan waa idaacadda Kulmiye ee Muqdisho. markana qodobka ugu dambeeya warkeena haddii aan soo qabto, diyaaradaha dagaalka ee dowladda Syria ayaa waxa ay ka hortageen gantaalo ka yimid dhinaca maamulka Yuhuudda, sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta dhinaca difaaca ee ka tirsan dowladdaasi Suuriya. gantaalada ayaa waxaa la sheegay in laga soo tuuray ama laga tuuray dhanka buuraha Golan Heights ee hadda ay degan yihiin militariga Yuhuudda. hase ahaatee buurahaasi Golan Heights ayaa waxay ka mid yihiin dhulka Syria ee hadda ay Israa'iil xooga ku haysato. ugu yaraantii 8 dagaalame oo ka tirsan kooxo maleeshiyaad ah oo taageeraha dowladda Syria ayaa ku dhaawacmay weerar madaafiic ah oo ay Israa'iil soo qaaday, waxa ayna ku soo dhaceen xarun militari oo u dhow magaalada caasimadda waddanka Syria ee Dimashq. guud ahaan saaxiibayaal warka habeen oo aad kala socoteen idaacadda Kulmiye ee Muqdisho caawa waa naga intaas. intiina uu dhaafay waxaad dib kaga baaran kartaan barta aynu internetka ku leenahay ee radio kulmiye.net iyo sidoo kale baraheena kale ee bulshada ee Facebook iyo YouTube ee KNN.